بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo ay tahay bisha December 24 sanadku uu yahay 2025 oo maalin Arbaca ah waxaan joognaa xarunta dhexe ee guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee Sohdimaha waxaan bixinayaa press conference oo ah la xiriira shir jaraa'id inaan warbixin guud ka dhiibo nambarka kaararka qaatay dadweynaha ku nool gobolka Banaadir. saa la socotaan kaar bixintu waxay soo bilaabatay bishii November sanadkan 2025 waxayna soo xirantay shalay oo ahayd bisha December 23 sanadkuna uu yahay 2025 walaalayaal saa la socotaan diiwaangelintu iyo kaar bixintu waa hawl dheer oo soo socotay nambarka guud ee isdiiwaangeliyay wuxuu ahaa 900 iyo finalistigu wuxuu ahaa 918,890 qof ayuu ahaa waxaa kaarka qaatay 503,916 muwaadin oo diyaar u ah inay biri subax doorashada dhici doonta ee golaha deegaanka gobolka Banaadir inay ka qayb qaataan waxaan idin sheegi doonaa degmo kasta inta qof iska diiwaan gelisay iyo inta nambar oo qaadatay kaarka insha Allah taala waxaan ku bilaabaynaa degmada Boondheere waxaa iska diiwaan geliyay dad gaaraya 17,291 kaararkana waxaa qaatay 9,674 Xamarweyne waxaa iska diiwaan geliyay 10,907 muwaadin waxaana kaarka qaatay 6,330 warta nabadda waxaa iska diiwaan geliyay 64,438 waxaa kaarka qaatay 29,308 qof Daynile waxaa iska diiwaan geliyay 111,030 muwaadin waxaa kaarka qaatay 43,734 degmada Helwaa waxaa iska diiwaan geliyay 62,121 waxaa kaarka qaatay 36,036 qof oo muwaadin Soomaaliyeed ah degmada Kaaraan waxaa iska diiwaan geliyay 109,204 muwaadin waxaa kaarka qaatay 70,305 muwaadin degmada Dharkeenley waxaa iska diiwaan geliyay 89,978 waxaa kaarka qaatay 53,742 degmada Wadajir waxaa iska diiwaan geliyay 67,564 waxaa kaarka qaatay 40,960 degmada Yaaqshiid waxaa iska diiwaan geliyay 114,197 waxaa kaarka qaatay 72,707 degmada Shibs waxaa iska diiwaan geliyay 21,947 waxaa kaarka qaatay 9,769 degmada Cabdulcasiis waxaa kaarka qaatay 6,835 degmada Shingani waxaa iska diiwaan geliyay 8,546 muwaadin waxaa kaarka qaatay 4,254 muwaadin degmada Xamar Jajab waxaa iska diiwaan geliyay 17,676 muwaadin waxaa kaarka qaatay 9,002 qof degmada Waaberi waxaa iska diiwaan geliyay 25,072 muwaadin waxaa kaarka qaatay 10,205 muwaadin degmada Hodan waxaa iska diiwaan geliyay 127,103 muwaadin waxaana kaarka qaatay 68,031 muwaadin howlwadaag degmada howlwadaag waxaa iska diiwaan geliyay 61,961 muwaadin waxaa kaarka qaatay 33,024 muwaadin walaalayaal nambarka guud ee kaararka qaatay saan u sheegay waa 503,916 muwaadin oo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada golaha deegaanka oo maalinka bari ah ka furmi doona gobolka Banaadir insha Allah taala waxaan rabaa inaan fariintan iyada aan ku gudbiyo wuxuu furmi doonaa goobta doorashada subaxii 6 in the morning oo u dhiganta 12 subaxnimo salaada subax iyo 6 pm ayuu xirmi doonaa oo ah 12 maqribnimo 12 saacadood ay socon doonaan degmo kasta qofka muwaadinka Soomaaliyeed ee kaarka codbixinta haysta degmada uu ka diiwaan gashan yahay meel walba oo codbixineed ayuu ka codeyn karaa qofkii meel arko inay line ku dheer yahay waa ka wareegi kara wuxuu aadi karaa meelaha laynkooda yar yahay meel walba magacaaga yaala iyo shaqaale la train gareeyay oo carbisan oo ku fududayn doona inaad si fudud codkaaga u dhiibato
بري marka la leeyahay magaaladu waa magaalo xiran macnaheedu maaha in la leeyahay qof socon kara malaha magaaladu waxay ka xiran tahay transportation-kii faraha badnaa oo jiray oo la yaqiinay iyo usual business-yada hore u jiray magaaladu waxay u furan tahay dadka codbixiyaasha macnaha magaaladu waa xiran tahay macnaheedu maaha inuu codbixiyo ka xiran maaha waa idin furan yahay insha Allah taala waxaa jiri doona inaad meel walba ka heli doontaan waxyaabo idin fududeeya inaad ku gaartaan goobaha codbixinta waxaa la idinka rabaa idinkoo xor ah oo kaarkiina haysta inaad timaadaan goobaha codbixinta waxaa idin yaala biyo aad cabtaan waxaa idin yaala shaqaale carbiyeysan laynka waa la fududeyn doonaa shaqaaluhu waa fara fudud yihiin requirement-ga la idinka rabo waa la idin sheegay farta khad baa la idin gelin doonaa marka aad codayso qofka marka uu laynka soo galo kow waxaa la fiirin doonaa fartiisa ugu yar faryarida loo yaqaano inuu soo coday in kala lagu hubin doonaa kaarkiisa ayaa la hubin doonaa inuu yahay muwaadin ka diiwaan gashan degmada la hubin doonaa marka la hubiyo kaarka waa la duleelin doonaa si uusan muwaadinkaasi mar dambe u codaynin marka laba waxaan sameynay double check oo dib u baaritaan ah kow farta khadda oo ay ku jiri doonto khaddaas ugu yaraan 2 maalmood iyo 2 habeen 48 hours khaddaas ku jiraysa daamin qofkaas khadda laga arki doonaa inuu codayno socday waxaan kaloo ku sameynaa mar labaad inaan hubin inaan qof kala codaynin inaan kaarka muwaadinka uu leeyahay lafta ah la duleelin doono oo punch lagu sameyn doono su'aal ajligeed haddaad aragtaan kaarka in laga duleeliyo macnaheedu waa calaamad loogu talagalay hufnaanta doorashada ma in adigu lagu xumeynay ma hadda farta lagu gelinayaan ha u maleynay inay tahay adiga oo calaamad gaar lagu sameeyay waa hufnaanta doorashada si loo hubiyo qofka muwaadinka ah inuu yahay qofka rasmiga ah kaarka iska lahaa iyo inuusan qofkaasi mar labaad codaynin muwaadin meel kastoo joogto bixi waa maalin weyn waa maalin muhiim ah ummadda Soomaaliyeed waa maalin dadka Soomaaliyeed ay wada fiirin doonaan caasimadda dalka Soomaaliya muwaadiniintii ku guuleystay ama jaanisku u helay inay kaarka ka qaataan fadlan degmada aad degan tahay goobta kuugu dhow oo aad ka codayn karto tag waxa ku diyaar ahnaan wax alla waxa u baahan tahay tasiilaada salaamu calaykum